Assalaamu calaykum. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa qiso cajiib ah, wax badan aynu ka faa'iidi doonno. Haweenaydii timaha u dabi jirtay inantii Fircoon ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa ka dhacay kafeedhii ay ugu dabaysay timaha inantii Fircoon. Way doontay si ay kafeedhii u soo qabato, waxa ayna tidhi bismillaah. Inantii Fircoon ayaa ku tidhi, allaha aad sheegaysaa soo aabbahay maaha. Haweenaydii ayaa ku tidhi, maya ee waa ilaaha aabbaha iyo aniga iyo adigabana wada uumay. Inantii aabbaheed Fircoon ayaa u tagtay, waxayna u sheegtay wixii ay tidhi haweenaydii. Fircoon wuu u yeedhay haweenaydii, waxa aanu ku yidhi, waa kuma rabbigaagu? Waxa ay ku tidhi, rabbigaygu waa rabbigaaga, waana Allah subxaanahu wa tacaala. Fircoon ciidankiisii ayuu ku amray in ay saliid badan u karkariyaan, lana keeno haweenayda iyo 3 wiil. Waxa ay keeneen wiilkeedii ugu weynaa oo soo kor istaajiyeen saliiddii. Markaasuu Fircoon weydiiyey haweenaydii, waa kuma rabbigaagu? Waxa ay ku tidhi, rabbigaygu waa rabbigaaga, waana Allah subxaanahu wa tacaala. Wiilkeedii koowaad ayaa lagu tuuray saliiddii ilaa ay lafihiisii kor sabeeyeen saliidda. Wiilkii labaad ayaa la keenay saliidda dusheedii. Markaasuu Fircoon weydiiyey haweenaydii isla su'aashii. Waxay ugu jawaabtay isla jawaabtii hore, isla sidii ayaana lagu sameeyey wiilkii. Wiilkii labaad ayaa lagu tuuray saliiddii ilaa lafihiisii ay kor sabeeyeen saliiddii. Waxaa la soo gaadhay wiilkii saddexaad oo ahaa naasnuug aan hadli karin, ayna aad u jeclayd. Fircoon ayaa weydiiyey isla su'aashii. Haweenaydii waa ay aamustay xoogaa, iyadoo u naxaysa saqiirkeeda. Alle ayaa ka hadalsiiyey ilmihii yaraa oo la hadlay hooyadii iyadoo aan qof kale maqlayn. Waxaana uu ku yidhi, dheh, waxaad ku socotaa waddada xaqa ahe. Haweenaydii ayaa ku tidhi si kalsooni leh, rabbigaygu waa rabbigaaga, waana Allah subxaanahu wa tacaala. Waana lagu tuuray wiilkeedii yaraa iyo iyadiiba. Lafihii wiilasha iyo haweenaydiiba waxaa lagu shubay waadi. Habeenkii dheelminta rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa rasuulka iyo Jibriil waxa ay soo kor mareen waadigii lagu shubay lafihii wiilasha iyo hooyadood. Nebiga ayaa waxaa u soo carfay udgoon aad u fiican. Wuxuuna weydiiyey Jibriil, waa maxay udgoonkan? Wuxuu ugu jawaabay, waa haweenaydii timaha u feedhi jirtay inanta Fircoon iyo wiilasheedii.